عمر محمود محمد عمر فينش oo jaafariimo u muuqday hanjabaad waxa uu u diray musharaxiinta mucaaradka isagoo oo sheegay in ay gadaal ka riixayaan wadamo shisheeye oo ka soo horjeeda xasiloonida Soomaaliya. Cumar Finish ayaa ka qaybgalayaasha shirka u sheegay in haddii ay xasiloonida caqabad ku noqdaan mucaaradka ay ku qasbi doonaan in wadamadaasi laga soo diray ay u carari doonaan. Ma ku dhacaan inay qashqashaadaan xasiloonidan aad ogtihiin inta wiilo idinkaga dhimato? Ma ku dhacaan? ogaado ayagu oo ogyihiin inaysan ku dhicin kuwa soo diray ayay u muujinayaan inay shaqeeyeen. hadday isku dayaan qalalaasana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana yidhi tallaabtan qaadi lahayd oo loo tilmaamo. muxuu yidhi allah suuratu al-ahzaab lain lam yantahi almunaafiquun والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. عمر مدهن قبيانا مدهن إلهي أنفسر مدهن لئن لم ينتهي المنافقون هذا يكبر يبتوا من المنافقين iyo walladina fi qulubihim marad iyo kuwa qalbigooda cudurku ku jiro iyo wal murjifuna fil madinati kuwa magaalada beenta iyo barabagaanka ku gilgila haday ka reebtoomin lan luqriyanaka bihim adigan kugu dirayna thumma la yujawirunaka markaa kadibna kugula dirsi maayaan fiiha magaalada dhexdeeda ilaa qaliil iyar maan malcuuniin وأقول نعلذي أينما ثقفوا مال كسو أي تجان أخذوا هلا قبضوا وقتلوا هلا دليل الله. shirkan oo cibaan looga dhigay shirka wada tashiga beelweynta habiye isla markaasina ay ka qayb galeen odayaal waxgarad xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay Muqdisho. shirkan ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa mid lagu taageerayo dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena waxa lagu soo horjeeday go'aankii maanta ka soo baxay musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya. Muxudiin Xasan Afrax oo kamid ah waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay shirka maanta ay isugu yimaadeen beelweynta hawiye. annagu dagaal ma naqaan laakiin meesha mudan aan la dagaalayna meel dagaal mudnayn xoog saar lagu tumo marrabo dagaal gelimayno meel dagaal u baahnayn dagaal sawaa naqaan laakiin meel dagaal u baahnayn in la geliyo marrabo waxa dhisan dalkan waxa soo marray xilli yaab leh oo la isdilaayo oo la sadacaayo oo ay hogaamiyo kooxeedo qabaa'il u kala baa meel u kala xirayeen oo dadka baasa ka qaata baafta ku leeyahay dadka ku fadhiisiya lacag weydiiya tigni ka jarta si baad ah dadka u baada oo aan loo baahnayn anagu kuwaas ma rabaan oo sacabtu maado la yiraahdo ilaahu noo soo celi kuwii dabka ugu baliisinay. sidoo kale shirkan wada tashiga waxa ka hadlay qaar kamid ah salaadiinta Soomaaliyeed oo ku baaqay in la taageero dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana mucaaradka dawladda ka soo horjeeda ay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida. laakiin waxaan leenahay dadkiibayada iyo sharafta loo naga hadashiin mabda ayaga ayaa naga hadashiin garashadayada ayaa naga hadashiin soomaalinimaa naga hadashiin nabad jacaylaa naga hadashiin ujeedaa ciddii doonta ama propaganda waxaan leenahay xasbuna allahu wa nicma alwakiil. maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynaha Soomaaliya xoog kuma uusan imaan meeshaan walaalayaalow xabad kuma uusan imaan xildhibaanadeenniyaan noo keenay Soomaaliya maalin meel inta isku wada barqadii ayadoo aniga cadadkii murashaxiinta ma aqaane waxa maanta la hawiyeynayo oo hawiye la leeyahay meela barqadii inta Soomaali isku tagtay ayuu ayadoo la wada taagan yahay galaangalkiisa iyo nasiibkii Ilaahay siiyay ayuu 7 saac wuxuu ku guuleystay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya inuu intaasi kadib waxaa hadalka qaatay qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee dadaalka ku soo bixiyay in gobolka Banaadir uu helo 13 sanatar kuwa oo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya u jeediyay eedeymo culus. waxyaabaha lagu heshiiyay waxa kamid ah meesha laga sheegay waxa la yiri gudiyadaas dhismahooda waa inay ka wada qayb galaan golaha hadda jasiira tiimka ku shiraaya iyo dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ah waxay heshiis ku yihiin nimanka jasiira jooga murashaxiin waaye kuraasay rabaan annagana murashaxiin anaga xildhibaan anahay murashaxaan kursi aan rabaa anaa qoraayo guddiga doorashooyinka
adigana ma qoraysid xildhibaanada iyo dadka kale xilalka raba iyo siyaasiyiinta aan madashaa joogin saamayn ma leh yaa loo sheegaya macnaad ii qoray adigu wixii aad rabtay intaad shir hool ka karaysato hotel hool ka karaysato oo adigu meeshaad maaragtay qadadaada cunto ayaad go-aan ii gaaraysaa inaad adigu qorto wixii guddiyada ahaayoo naga dhexeeyey nin Soomaaliya oo haddana reer gobolka Banaadir ah oo dhibaatada ka dhacday dalkan inuusan waa hubaa uusan taageerin dhibaato kale inay ka dhacdo taada kale mar haddii ciidamadii mushaarkoodii oo dhammaystiran bilwalba qaadaayo waa kee ninka dagaalamayo oo la leeyahay dagaalaan awaawleyna ma jiro nin dagaalamaya nin walba dantiisu haystaa